Geedaha waxaa laga yaabaa in ay nooga digaan marka foolkaanadu qarka u saaran tahay inuu qarxo. Sayniska saadaalinta qarxinta foolkaanaha ayaa si dhab ah u badbaadin kara nolosha, suurtagal ah, naf badan. Cilmi-baarayaashu waxay muujiyeen in midabada caleenta geedku ay u dhaqmi karaan digniin ah oo ku wareegsan foolkaano ku dhow inuu afuufo. Markii foolkaanooyinku ay firfircoonaadaan oo ay ku soo dhowaadaan qarxinta, waxay ku riixaan magma ilaa dusha sare, iyagoo sii daaya heerar sare oo kaarboon laba ogsaydh ah. Taasina waxay kor u qaadi kartaa caafimaadka dhirta ku xeeran, taasoo ka dhigaysa caleemaha cagaar. Iyo isbeddelladaas, gaar ahaan cabbirka loo yaqaan tusmada kala duwanaanshaha daaqsinka ee caadiga ah (NDFI), waxaa lagu arki karaa satellite-ka meel bannaan. Waxaan eegi karnaa habka digniinta ugu horrayso ee qarxinta aan u baahnayn wax shaqo ah oo gudaha ah ama dareemayaasha dhulka, si ay uga shaqayso meelaha fogfog ee ay adag tahay in la galo. Waxaa jira satellite badan oo aan u isticmaali karno si aan u samayno falanqaynta noocan oo kale ah, ayuu yidhi cilmi nafsi yaqaane Ole Gwyn oo ka tirsan jaamacadda Houston. Gwyn wuxuu ahaa qoraagii ugu horreeyey ee daraasad dhowaan la sameeyey oo eegaysay heerarka kaarboon laba ogsaydh ee agagaarka Mount Etna ee Talyaaniga. Daraasadu waxay barbardhigtay xogta dareemayaasha ku hareeraysan foolcano iyo sawirrada dayax-gacmeedka, helitaanka xiriir adag oo ka dhexeeya kaarboon dioxide iyo geedo cagaaran. Intii lagu guda jiray muddada 2 sano ah, kooxdu waxay heleen hal 6 xabo oo cad oo kaarboon laba ogsaydh ah iyo NDFI oo u dhigma dhaqdhaqaaqa magma dhulka hoostiisa. Qaababka ayaa xitaa lagu arkay meelo ka fog khaladaadka buurta. Magma xumbo. Kaarboon dioxide ayaa lagu sii daayay goobooyin magma ah oo kor u kacaya ee Costarica. Daraasadaasi waxay tixraacday cilmi baaris hore oo laga soo bilaabo 2019 oo uu hogaaminayo volcanologist Robert Bogue oo ka tirsan jaamacadda McGill, kaas oo muujiyey in kaarboon dioxide ay sii daayaan 2 foolkaanooyin firfircoon oo Costarica ah ay saamayn ku yeesheen midabka caleen ee geedaha kulaylaha aagga. Hadda Gwyn iyo Bogue oo ay weheliyaan cilmi baarayaal kale ayaa ka shaqaynaya mashruuc ay hogaaminayaan NASA iyo Smithsonian Institute oo lagu falanqaynayo isbeddellada midabka nolosha dhirta ee ku wareegsan volcanoes ee Panama iyo Costarica. Waa qayb ka mid ah tijaabada midaysan ee hawada, dhulka ilaa badweynta Afuelo ee wada shaqaynta leh, kaasoo eegaya horumarinta habab badan oo aan ku cabbiri karno caafimaadka meeraha dayax-gacmeedyada. Hababka hadda jira, sida NASA's Orbiting Carbon Observatory 2, ayaa kaliya xoog ku filan si ay u soo qaadaan qarax weyn. Kol ano Titan ee koonfurta Chile ayaa qaraxday May 2 sideed markii ugu horaysay muddo 9 sano ah. Dayax-gacmeedyada NASA ee kormeera isbeddellada dhirta ee u dhow foolkaanaha ayaa caawin kara digniinaha hore ee qaraxa. Foolkaanaha sidaaya qadar yar oo kaarboon laba ogsaydh ah oo laga yaabo inuu qarxiyo kama muuqan doono sawirka dayax-gacmeedka, ayuu yidhi Bogue. Fikradda oo dhan waa in la helo shay aan cabbiri karno halkii aan si toos ah uga heli lahayn kaarboon dioxide, si aan u helno wakiil si aan u ogaanno isbeddelka qiiqa. Waxaa jira calaamado badan oo loo tarjumi karo si loo saadaaliyo qaraxyada foolkaanaha, oo ay ku jiraan guuxa hirarka seisme iyo isbeddelka dhererka dhulka. Iyadoo cagaarka caleemaha ka soo baxaya qiiqa kaarboonka, waxaan hadda haysanaa calaamad kale oo lagu cabbiro, xitaa haddii aysan ku habboonayn dhammaan goobaha. Cilmi baarayaasha Afuelo waxay sidoo kale xiisaynayaan saamaynta ballaaran ee kororka kaarboon dioxide ee geedaha. Marka dunideenu kululaato sababtoo ah qiiqa bini'aadamka ee kaarboon dioxide, waxaan sii kordhaysa ugu tiirsanaan karnaa dhirta si loo habeeyo gaaska aqalka dhirta lagu koriyo. Waxaan xiisaynaynaa kaliya ma ahan jawaabaha geedaha ee kaarboon dioxide ee foolcano, sida digniin hore ee qarxinta, laakiin sidoo kale inta ay dhirtu awoodaan inay kor u qaadaan, sida daaqada mustaqbalka dhulka marka dhammaan dhirta dhulku ay u soo baxaan heerarka sare ee kaarboon dioxide. Ayuu yidhi saynisyahanka cimilada Josh Fisher oo ka socda jaamacadda Tubman ee California, qaybna ka ah kooxda Afuelo.